Victorow! Tarab saardab! Victorow! waxaad tihiin askartii waajibkeeda gudatay waddankii difaaca ka laheedna sidii allana ugu talagalay iyagana ka dadaalaheed u gudatay aniga magacaygu waa axmed faarax cabdulle aniga waxaan ku dhashay magaalada beledweyne waxaan dhashay 1989kii Allahu akbar waxaan ka tirsanahay guutada tobanaad ururkeeda koowaad hurinteeda labaad waxa waaye halxadig xooga dalka Soomaaliya sargaal aniga oo soo gelin dawladda Soomaaliya aniga markaan soo galay tinta ayaan iska xiray askarinimo markaa u soo xaadiray in badan dibadeed qofka sargaal waxa ku noqday oo dalacada qofka markuu dalaco waxa waaye qofba waxa u soo baxay hadda heerbeer soo maray waxaan marayaa halxadig xooga dalka Soomaaliya inta iga dhimana waxaan rajaynayaa rag iga horeeya inaan ka daba tago Victorow! Tarab saardab! Victorow! waxaad tihiin askartii waajibkeeda gudatay waddankii difaaca ka laheedna sidii allana ugu talagalay iyagana ka dadaalaheed u gudatay haddaan intiidii dhimo guda doontiin intaad gudatay waa ku mahadsantihiin oo ku abaalsantihiin intiidii dhimanna waa guda doontiin aniga waxa waa horta shaqadayda wax badan kala kulmaa waxna waa wax aan guda karo waxna waa wax aan guda karin marka waxa waa ay leedahay meel loo gudbiyo wixii aan guda karana waan soo gudtay haddana waxaan rajaynayaa in aan meel kasta aan ka howlgala aan hawsheeda ku guuleysto aniga waxa waaye ciidanka buundooyin jooga waa 3 aagayow u qaybsan yahay ha ahaatee hadda waxaan ku keenay aagii koobaad qaybtii joogto waa ku fayliyay anigana waxaan ahay buundooyin inta joogto nimbanimo soo xukumaa ninkii ugu sarreeya ayaan ahay qaybtii inta oo koobaad nimiday waa nala fayliyay ayagana wixii waajib ku ah waa u sheegnay annagana kormeeraan ugu nimiday haddana shaqada raga ayaa iga hoosay kormeer ayaan ku imaaday ragii iga hoosay shaqadoodii way wanaagsan yihiin السلام عليكم حالدين في عمتين سنوات سوق بيننا ما شاء الله بيننا سنوات بوندة توس كنت شعبك بالرمضان يا الجرا حرنمو أديكتا دو دكان كذا دو قاري وضو دو شعب لقينا ياهي دي أو وحسوي بسنة أسوي سمر سنة حر أيه وياهي وح عقبضة كلامك كلني قفك عقبض لك كل ما أنا قفك عقبض كل نقدي وسوي شيء ولا الدونا ولا سوق بنا شعبك wixii ayaga xumaan ku ah oo caqabad ku ah qofkii ka soo sheegtaan waa laga qabanaa wixii ayaga wanaag u ahna anaga wanaag noo yihiin waxaan iska dhiibay wixii siina qaadayna adi way dacaya keen ana xaaladda suuqa aad u fiican tahay qof badanteeda wadataa dhanka shacabka caqabad lama geliyo qof walba aba shaqadiisa uu madax banaayaad xaaladda ka waran alxamdulillah soo fiican alxamdulillah waxaan hadda joognaa buundooyin sideedaba waxay qaabilsan tahay qaybta qudaarta suuqa qudaarta ayada ku yaallo qudaartana waxa waaye hadda waxaan joognaa aagga qaraha qarowow noo dhoweeya beeraha way iska baxaan dhaliirta shaqo iska heshaa mid falo mid guro mid asagoo tabcado oo la iska liibaansan yahay qarahaas hadda u jeedid waddankeenu ka baxaa waxaa loo dhoofiyaa naga koonfur waxaa loo dhoofiyaa laga waqooyi marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo meesha joogaba ha joogto nabaddu way macdahay dhanka ganacsiga way ku macdahay dhanka dawladnimada way ku macdahay dhanka shacabnimada way ku macdahay qof kasta Soomaaliya waxaan dhihi lahaa nabadda ka shaqeeyo dhanka dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada shaqo in ay shaqaystaa way macaan tahay in ayada loo shaqeeyana way macaan tahay waxa hadda waddankan ka beeran waddankayna ka baxeen kii ku dhigta way u baxeen kii ka shaqaystay waa ka shaqaysana kii beer lahaay waxa waaye hadda waxa jirta dad waddanka ka maqan oo waddankiisa dad kala tabcanay hadda markay nabad imaatana ayagii ilaa tabcaday
xaaladda dhallinyarada beledweyne qofba camal ayay leedahay kuwa askari noqdo sideedoo kaleeto dowladnimada u shaqeeyo ciyaartoyda kuwa way ganacsadaan kuwa gaari iska wataan oo ayaga safaro dheer iyo safaro dhow midkii mataqaanaa markaa shaqadooda tay galaan mustaqbalka dalka intii hore hadda kolba waa yeelaheed ayagaaba waqti gab joogo waxa waaye dhalinyarta dalka ayagaa iskale horta dhanka dhalinimada wax kastaba dhalinyarta way u fududahay in ay howl gasho way u fududahay inay wax baratay way u fududahay in ay iyada wax qabsatay way u fududahay in ay dowladda wax u qabatay way u fududahay qofka da'da iyo qofka dhalinyarada wax walba isugu mid maaha ilaykiya hal sida kale baashale aniga waxaan jeclaan lahay qof kasta oo Soomaaliya wixii aan u qaban karo inaan u qabto waxa waaye aniga hadda askariinimo ku soo galay dowladda Soomaaliya haddana askariinimada qofku waa mar walba dalacaa sargaal u tagaa askariinimada aan ku soo galay hadda sargaal aan mara